السلام عليكم كسو دوادا موقال عصب موقال كاني وحين idinku soo gudbin doona beenaalaha shukaansiga iyo xeeladaha uu adeegsado marka laga hadlayo shukaansi qof kasta wuxuu ku dadaalayaa sidii uu heli lahaa qof kale wuxuuna qof kasta u muujinayaa dhinaca kale wanaag haddaba waxaa jira xeelado sahlan oo ka caawin kara in aan lagu qaldin ama aadan ku dhicin dabinka beenaalaha shukaansiga xeelada koowaad uu kugu soo dabi kara beenaalaha shukaansiga waa in uusan fursad muhiim ah ku siinin inaad kala hadasho waxyaabaha muhiimka taasina waa sababta gabdhaha qaarkood loogu soo xirgeliyo been sida awgeed waxaa muhiim ah in xilliga haasaawaha aadan xooga saarin hadallada jaceylka ah laakiin waxaa loo baahan yahay inaad si taxaddar leh u dhageysato qofka kale aadna su'aalo ka weydiiso aragtida uu ka haysto nolosha maadaama aad rabto inaad la gasho heshiis nolosha ku tiixan xeelada labaad inta ay socoto sheekada waxa aad u wanaagsan inaad badanaa u fiirsato qofka mawduucee ayuu jecel yahay inaad kala sheekaysato mawduucee uu ku dareemaa firfircooni marka laga hadlayo waxaa laga yaabaa markaaad ka hadlayso mas'uuliyad guri inuu sibabsiisa kugu dhaafsiiyo laakiin uu rabo inuu kaala hadlo jirkaaga iyo sawiradaada markaasi waxaad fahmaysaa qofkan meeshuu u socday iyo wax uu xiiseynayo midna aan kuu raaciyo marbaaduu qofka jirkaaga iyo sawiradaada ka hadlayo qofkaasi ma ahan qof daacad kuu ah haasaabaha uu kuula wadana ma ahan mid dhab ah ee qofkaasi wacan ugu taxaddar iskana ilaali inaad ku dhacdo dabinka beenaalaha shukaansiga xeelada saddexaad xilliga shukaansiga mararka qaar jaceylka wuu naga indha tiraa xaqiiqda dhabta ah ee qofka waxaan maskaxdeena ku qabanaa qofkan waan ishukaansanaa waan isguursanaynaa go'aanka guurkana maalmaha hore ayaan qaadanaa annagoo qofka si fiican u baran taa awgeedu maskaxdeenu waxay joojinaysaa inay ka fikirto qofkan ma kuu qalmaayo in kale qof kasta oo ku shukaansada uma qalma inuu ku guursado qofka markaad shukaansanaysid waxaad isu shukaansanaysaan waa inaad isbarataan ee ma ahan oo keliya inaad jaceyl uun isu sheegataan haddii aad saddexdan qodob ku aragto qofkaad shukaansanayso qofkaasi ma ahan qof daacad ku ah mana ahan qof doonayo inuu ku guursado ee intii ay goori tahay hurdada ka kac qofkaana si wacan uga taxaddar ugu dambayn anigu ma garanayo in jaceylku isbedelo laakiin dadku way isbedelaan xaaladuhuna sidoo kale way isbedelaan